Hello, my name is Abdul Savadi, and I came from Afghanistan to Australia as an Afghan Cameleer in about the year 1866. Ma ogtahay in waddanka Australia laga yaabo inuusan jiri lahayn haddaysan muslimiinta ahayn? Waxaad arkaysaa in Australia ay tahay dal weyn. Aad ayay u weyn tahay. Waxaad ku habboon kartaa inta badan qaaradda Yurub xuduudaheeda. Laakiin haddii aad fiiriso maapka qaaradda Australia, waxaad arkaysaa in Australia ay tahay waddan intiisa badan saxaro lama degaan ah oo huwan ciidda cas. Laakiin dhanka xeebaha cimiladu waa qabow, dhulkuna aad ayuu u sahlan yahay in lagu noolaado. Dhammaan magaalooyinka ugu waaweyn Australia sida Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, Darwin, dhammaantood waxay ku yaalaan xeebaha Australia, taasoo mudan in su'aal la iska weydiiyo: sideed iskugu xiri kartaa magaalooyinkan iyada oo u dhexeeya kumanaan mayl oo saxaro ah? Hagaag, horaantii sannadihii 1800, muhaajiriin ka timid qaaradda Yurub ayaa si xad dhaaf ah u soo buuxiyay Australia, waxayna bilaabeen inay gumaystaan dadkii ay halkaasi ugu tageen. Waana isla xilligaas markii uu bilaabmay isticmaalka tareenada uumiga ku shaqeeya ee qaaradda Yurub, taasi oo ahayd horumar weyn oo dhanka tiknoolajiyadda ah una sahashay in dadka ay si fudud ugu kala gooshaan qaaradda Yurub, meeshana ka saartay isticmaalka fardaha iyo gaari-dameerka. Tusaale ahaan, safarka London ilaa Edinburgh wuxuu qaadan jiray 10 maalmood, laakiin markaan wuxuu noqday 45 saacadood oo kaliya. Laakiin waxaa jiro dhibaato weyn oo ay tahay in la xalliyo. Yurub iyo Ameerika waxaad isticmaali kartaa fardaha ama gaari-dameerka si aad ugu geyso cuntada iyo sahayda shaqaalaha dhisaya waddada tareenka, laakiin intaan oo dhan midna ma isticmaali kartid qaaradda Australia. Maxaa yeelay, saxaraha Australia waa mid aad u qallafsan, cimiladuna waa mid aad u kulul, farduhuna kuma socon karaan. Markaa gumaystihii Ingiriisku waxay la imaadeen xal. Australia iyo Afghanistanba waxay maxmiyad u ahaayeen gumaystihii Ingiriiska, waxayna Afghanistan ka keensadeen geel iyo dad u kaxeeyaba. Sanadkii 1938, Australia waxaa imaaday neefkii ugu horreeyay ee geel ah, waxayna ugu magac dareen Harry, waxaana xigay in geel kale oo badan ay ka keensadaan qaaradda Asia, gaar ahaan Afghanistan, si ay u bilaabaan dhisidda waddooyinka tareenada ee Australia. Markii ugu horreysayba waxay bilaabeen isku xirka gaadiidka ee saxaraha, iyagoo kaalmaysanaya safaridii reer Australia si ay dalka u sahmiyaan, waxayna taasi u sahashay inay helaan waddooyinka ugu fiican oo ay gaadiidka marsan karaan, iyo weliba kheyraadka dabiiciga ah. Kadibna waxay u sameeyeen silsilado sahay ah, waddo kasta oo ay ku yaalaan saldhigyo loo yaqaan caravanserais oo jidka ku yaal, si ay dadka socotada ah ugu nastaan oo ay dib ugu helaan safarkooda. Markii la dhiso goob cusub oo kasta oo macdanta laga qodana, waxaa sahayda u keeni jiray geeladii reer Afghanistan ee Australia la keenay. Gumaystihii Ingiriiska intii ay ku guda jireen sahminta gudaha dalka, waxay bilaabeen mashaariic kale oo dhismo ah. Dhinaca galbeed ee Australia waxay ka dhiseen deyrka ugu dheer ee aan jabin ee adduunka si ay uga ilaaliyaan dhul-beereedka xeebaha cayayaanka. Wuxuu ahaa mashruuc aad u ballaaran oo 1,100 mayl ah, kaas oo qaatay 6 sano in la dhiso. Tusaale kale, geeladii reer Afghanistan waxay la shaqeeyeen injineero si ay u dhisaan una dayactiraan khad telegraph oo dhererkiisu dhan yahay 2,000 oo mayl. Ugu dambeyn, waxaa bilaabmay dhismaha shabakadda tareenka. Waddada tareenada ee Queensland waxaa laga dhisay xeebta waqooyi bari ee isku xirta Brisbane iyo shabakad deegaan oo halkaas ku taal. Dekedda koonfureed ee Augusta waxa ay ku xirneyd Perth. Dekedda Penrith waxa ay ku xirneyd Sydney, ilaa ugu dambeyntii ay go'aansadeen inay isku xiraan labadaas dekedood, iyaga oo wada daboolaya balaca Australia oo dhan. Waxay sidoo kale ka shaqeeyeen khadadka isku xira magaalooyinka Adelaide ilaa Melbourne iyo dekedda Augusta ilaa Darwin ee waqooyiga. Laakiin khadadkan ayaa la dhameeyay waqti dheer kadib markii Afghaanistaaniyiintu ay ka huleeleen Australia, iyadoo muslimiintu ay sii wadeen dhismaha kaabayaasha Australia oo mideeyay deegaanadii caddaanka oo halkaa ka jiray, hal waddanna ka dhigay. Dhowr jeer musiibo ayaa ka dhacday Australia, markastana geelidii muslimiinta reer Afghanistan ayaa u soo gurman jiray. Sanadkii 1895, Australia waxaa ka dhacay abaar 7 sano ah oo ka mid ahayd abaarihii ugu darnaa ee soo mara. Afghaanistaaniyiintana waxay si aan dhammaad lahayn ugu shaqayn jireen bixinta biyaha iyo saadka deegaanadii caddaanka oo aad ugu baahnaa. La'aantood, magaalooyinka yaryar sida Wilkiniya, Whitecliffs ilaa Babura, Malbarinka iyo magaalooyinka kaleba way joogsan lahaayeen shaki la'aan. Dhanka kale, Afghaanistaaniyiinta ayaa shacabka Kanamuula ka badbaadiyay macluul
kadib markii daadad ay magaalada ka jareen gaadiidka kale oo dhan. Xilligaas adag oo Australia soo martay, waxaa jiray ganacsato Muslimiin ah oo bixinayay gaadiidka iyo adeegyo kale oo dayactir ah. Qaar badan oo ka mid ah ganacsatadan ayaa macaash ka helay oo ay dib ugu maalgashan karaan ganacsiyo kale, kadibna waxay u isticmaali jireen faa'iidada ay helaan inay ku dhisaan masaajid. Tusaale ahaan, masaajidka ugu weyn Adelaide iyo Perth waxaa dhisay ganacsatadan Muslimiinta ah. Waxaa la dhihi karaa Muslimiintu waxay muhiim u ahaayeen bulshadii reer Australia, laakiin dhammaan Australiyaanka uma aysan arkin sidaas. Intooda badan, Afghaanistaaniyiintii Australia waxay ka tageen qoysaskoodii oo keligood ku nool bannaanka magaalooyinkii ay caddaanku degganaayeen. Waxaa lagu qasbay inay degaan xeryo loo yaqaan gun towns oo ka fogaa deegaanada caddaanka. Markii ay xeryahaasi ballaarteen oo ay magaalooyin isu beddeleenna, waxay ku soo fideen deegaanadii caddaanka, laakiin shacabkii caddaanka ahaa arrintaasi way qaadan waayeen. Kadibna waxay magaalo kasta u kala qaybiyeen hal dhinac oo caddaan ah iyo hal dhinac oo Afghaanistaaniyiin iyo Aboriginal ah. Dabcan, Aboriginal waa dadka asliga ah ee Australia. Dhinaca kale, markii laga eego, Afghaanistaaniyiintu waxay ku guuleysteen inay u kala socdaalaan Australia iyo Afghanistan. Waxaa mararka qaar lagu joojin jiray xuduudaha Australia dibna loogu celin jiray Afghanistan, taasoo macnaheedu yahay inaysan weligood dib ugu soo noqon karin ganacsigooda ama qoysaskooda. Laakiin waxaasoo dhammi waxay dhammaadeen dabayaaqadii 1930kii. Geelladii reer Afghanistan ayaa si tartiib tartiib ah howlahoodii usoo dhammaadeen kadib markii la bilaabay isticmaalka gawaarida. Australiana waxay dhisaysay wadooyinkii ugu horreeyay ee dalka oo dhan. Geelladii reer Afghanistan waxaa ku adkaaday inay shaqo helaan, waxaana usii dheeraa in la cunsuriyeeyo, taasoo ku qasabtay in intooda badan ay waddankooda hooyo dib ugu laabtaan. Hadda wax kasta way isbedeleen. Australiana waxay garowsatay dadaaladii geelladii reer Afghanistan, waxaana looga dhisay taalooyin magaalooyinka Adelaide iyo Alice Springs. Waxaa kale oo jira tareen socda 54 saacadood una kala goosha magaalooyinka Adelaide iyo Darwin, loona yaqaan The Gun, lagana soo gaabiyey Afghanistan.